maalmahan ba waxa jiray xaflado la qabanayay oo dad uu qabanayay ama dad xisbiga mucaarad ku ah noqdaan ama dad wax kale isusaan ha noqdaan waxay isticmaalayeen loogada iyo calanka xisbiga iyagoo isticmaalaya oo gidaarada ku dhajinaya bay haddana waxay ku dul caadayaan xisbiga laftiisii waad arkayseen qaar maalin hore ay ku qornayd muusow laba cad iskuma heshid oo calankii xisbiga ah waad arkayseen mid xalay ku qornayd calankii xisbiga ku dul qornayd ilaa good abaal ma leh waa ceeb qof aad caayayso oo la dagaalamayso oo dagaal kula jirto inaad loogadiisii calankiisa isticmaasho aday ceebka ku tawaana dembi waa dembi xisbiga laga gelayo waa institution qaran weeye xisbigu xisbiyadu waa institution qaran haddii aad iskaga tagtay u daa xaqiisa haddii aad caayayso adoo xora cayd haddaan iska daynaynin oo caydaa door biday adoo xora iska cay laakiin ha isticmaalin calanka iyo loogada xisbiga waa dembi xisbiga laga gelayo arrintaana hadda wax ka dambeeya xisbigu ma aqbali doono mana yeeli doono cidna xisbiga lagu khasbi maayo cidna qofka haddii damiirkiisu qaban waayo inuu wax wanaagsan ku hadlo cidna wax wanaagsan ku hadal dee la odhan maayo waan odhan lahayn ciddii dee yeelaysaa ciddii afxumo dooratay ee dhallinyaradeennii oo maanta aad og tihiin waxa lagu barbaarinayo o dhame caydii afxumada inay tahay dhallinyaradeennii dhaqanka wanaagsan la bari lahaa ee hadalka wanaagsan la bari lahaa ee dadka waaweyn kaga dayan lahaa hadalka wanaagsan dadkii waaweynayna u soo laqimayn hadalkii cayda iyo intii xumayd waa jiil dhan oo inaga sii baaba'aya waa jiil dhan oo dhaqan xun ku soo koraya waa jiil dhan oo aad arkayso ixtiraamkii inuu ka tegayo waa jiil dhan oo aad arkayso kii ka weynaa iyo kii ka yara midna inaanu turayn oo cidi bartay oo cidi ku hagayso jiil walba waa nasiibkii kule annaga dee qolyi naga waaweynaana soo tababaray intayadan iyo inta kaleba iyo annagoo laftoodu sii kale waaweyn waxyaalaana la bari jira waxa ka mid a cidna lama caayo cid ha caayin diinteena ina amraysaa dadnimadeena ina amraysaa dhaqankeena wanaagsan bayna farayaa bani aadminimada ina faraysaa haddiise lagugu taag waayey oo aad taa door biday waxaanu jeclaan lahayn calanka iyo loogada xisbiga in aan la isticmaalin waa go-aan xisbiga ka soo baxay guddida qabaqabada kama soo bixin xisbigu ka soo baxay annagu afka xisbigaan inteedana ku hadlaynaa inahaasun bay u badan yihiin inahaan maanta aanu doonay aanu isku wargelino aanu jecel lahay inay bulshada gaadho aad iyo aad ba umahadsantahi